waxay ku sii maafool leeyihiin beledka iyo tuulada baraawo loo yaqaano waxaa barakac ka joogo dadka halka inna lillahi wa inna ilayhi waligiin noloshiin intaad joogteen waxaan ma aragteen waa markii u horeysay oo arbisho meeshaan aa ujeedaan waxaa kulmay ninkay dhahaan Ismaaciil Caarka iyo Dayaxdal Noorsho oo isku ah dab iyo benziin markii la joogo magaalada Muqdisho oo aysan isarki karin tan waa soo dhaweyntii xalay magaalada Muqdisho lagu sameeyay master arrimaheena dhalinyarada team 27 ay u sameeyeen ilma ka baha misgawarata ya gabadh videogan Facebook iyo TikTok iyo meelaha qaar aad loo wareejinay gabadhan iyadoo dulmi weyn u geysanayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa walaalkiin Mr. Kilmataani oo idin leh xilli kastoo inta wanaagsan halka aad nagala socotaan waa page-ka Facebook ee Mr. Kilmataani 2 ama Mr. Kilmataani YouTube isagana 2 ay ku qoran tahay had iyo jeer anaga waxa soo gudbinaa reaction-ka social media waxyaabaha ka cusub maanta waxa miiska noo saaran Ilaahay idmo nafta nagu simo asad xaajiyo iyo walaalkiisa arrimaheena oo markii ugu horeysay Muqdisho video ku duubay sidoo kale waxa miiska noo saaran haddaan idin soo gagaabiyo deegaan la yiraahdo Baraawo sangala daraadiis loogu guuray sidoo kale waxa miiska noo saaran sheeg Dayaxdal Noorsho iyo Ismaaciil Caarka oo hal xaflad xalay ku wada kulmay kale oo muhiim ah meesha ku jiro hal iyo laba kale doona videoyaal goos oo si fiican loo soo diyaariyay oo habaysan waaye daawasho wanaagsan fadlan like igu taageer oo share igu taageer oo subscribe igu taageer oo follow igu taageer waxaan kaaga baahnay waa dhiirigelintaada waa markii u horeysay oo arbisho Muqdisho with Armena. Oh my God. Armena. This is Mogadishu, man. Wow. Welcome Mogadishu, man. saaxiib sare magaalada ku soo dhawow de arrimaheena iyo asad xaajiyo waa la yaqaano dad la yaqaano waa dad YouTuber saameyntooda la og yahay 3 milyan ku xiran asad xaajiyo waa la og yahay labada qof ama saddexda qof ee ugu horeysa YouTube-ka uu marka uu ku jira nin Soomaali ah oo hadda afka Soomaali YouTube-ka ku hadla 3 milyan ku xiran asad bisa ka jira dhalinyarada waa dhalinyaradii asad arrimaheena xalay showgiis ka soo qayb gashay oo meesha show ma ahayn soo dhaweyntiis ka qayb gashay oo meesha uu amaleysay meesha hadda waxa ka muuqda ninkay dhahaan guuxaye meesha waxa ka muuqda fanax ninkay dhihi jireen oo barnaamijka lahaa carablaha oo iska ahaa arrimaheena dhalinyaro badan joogto tan waa soo dhaweyntii xalay magaalada Muqdisho lagu sameeyay master arrimaheena dhalinyarada team 27 ay u sameeyeen iyagoo showga ama meesha la isku imaanayo u qurxiyay oo si fiican oo kal ilaawa u soo dhaweeyay welcome to Muqdisho arrimaheena laakiin oo asad intaan oo gabdhaha intuu ka keenay waa faham waay bani meeshaan aa ujeedaan waxaa kulmay ninkay dhahaan Ismaaciil Caarka iyo Dayaxdal Noorsho oo isku ah dab iyo benziin markii la joogo magaalada Muqdisho oo aysan isarki karin marka maadaama uu Ismaaciil uu hadlooyo Dayax uu isboojeynayo dadka inuu la sheekaysto uu isboojeeyo uu dhaho uu baasha ka dhigay hadalkii wixii ma dhageysanayo marka taas waxay ku tusinaysaa in ay dagaal xun uu ka dhaxeeyo هذا ما ستهين بالله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله إله سبحانه وتعالى وكان نقول عظم نسوك لكي أعوى ضلكين نوضي برواق qof marka asaysan oo meesha uu goobta xafladda uu ka hadlayo saan isku boojeeyay mina dag gasa u siya toos daa u dhigaysid moogtahay kaamirooyin ku socdo ilma ka baha misgawarata ya
gabadh videogan Facebook iyo TikTok iyo meelaha qaar aad loo wareejinayay gabadhan iyadoo dulmi weyn u geysanayso. gabadhan masaakiinta waxay ka imaaday Daniel ay ka imaaday iyadoo waa gabdhaha iska guryaha gargaraaca oo waxay siiyaan masaakiinta dhaho waa ilaahay iidan arsaaqad fiican u sahlo. videogan aad ay dadka uga xanaaqeen in ay wax ka duubto haddana ay wax siin weyso iyadoo weliba xitaa kaba la-aan ah. dadka waxay qorayeen adduunyadu waa laba gelin, maanta haddii ay kuu fadhiso berri adigay kuu soo gadoomi doontaa. gabadha sababta ah wejigeeda oo usoo dhigtay ama usoo duubtay maxaa waaye haddaadan waxba siinin, marka waxay dhihi doontaa aan soo aragno iyo dhibaatada ay u geysan doonto. garowa maxaa laaskiin maasha Allah gabadh fiican aad taaba oo kuusanay ma shaqaysataba ya ما شقيستي يا شقة مرت المياه بابا يسوع هيا با ماما قري مجوكتي لا نسو أديكو مقلسو maamada guriga ma joogtee ilaahay waxa kuu sahlo kulaha muuqaalkina ay ka duubatay war xitaa qofka hadaaba muuqaal ka duubatay waaba duubatay maxaad minaha wax u siin weysa xitaa hal nus kiilo baasteexa u siin weysa waaba video waa ka duubtay waaba ujeedahay haddana intaad video ka duubtaa Facebook soo dhigtay waxaa leedahay ilaahay ha ku siiyo iska bax. videogan codkiisa ma sii deynayo ninkaas aa ujeedaan uu isdila wuxuu sameynaa waa nin isku buuqsan maskaxiyan oo u xanuunsan. wuxuu sameynaa qaybta dambe ee marwaaxada bahasha wareegto galaa ka bacdi bahasha way soo ridaysaa oo hadda uu soo dhacdag uu soo dhaca ujeediin marka codka lama sii deyn karo in haddaba abti ka qaba in ay ugu qabsadaan kuwa qodada YouTube-ka. marka dadka qaarkii stress iyo madax xanuun haday qaadaan oo inay isdilaan ay ku dhow yihiin. beledka loo yaqaano Baraawe oo maantay bahala tiro badan oo loo yaqaan Baqti Laflaawe ay ku soo yaaceen waxay ku sii maafool leeyihiin beledka iyo tuulada Baraawe loo yaqaano waxaa barakac ka joogo dadka halka. inna lillahi wa inna ilayhi waliin noloshin inta joogta waxaan ma aragteen markaan soo fiiriyay dadku waxay sheegeen in uu yahay sangalo wax la dhaho oo badana dhanka iyo dhoweeyda u badan sida dhulka dhoweeyda oo beeraha beeraleyda dadka beeraleyda waxaana la yiri waa wax iska caadi ah sanad walba waa iska imaadaa oo sii gudbaa ma soo noqdo waxaana la dhahaa la yiri sangalo deegaanka dhan aa looga guri ilaahan ku waxaan qofkii arko waa cabsanaabay iska ordaa wallahi billaah subxaan sii daawana bal kaas deegaankaas deganay iyo heeraaradiisa walaalayaal waxaan idinka rabnaa in caawin laga gaarsiiyo dadkaas waxaan qulqulayo oo imtixaanka bisminkii tarxibaad moodaa tarxib waa Baqti Laflaawe Baraawe ay ku sii foolleeyeen hadday tagaana dadku guuraya dadkaas deegaanka meel waadana ma garanayo sidoo hore badda u gelin rabaan dadka balfeeriya meel ka muuqata male ayaga ba isku cuno waa isku kor baabay. warkuwaan caadi ma ahan ilaahay shartooda naga wareeji subxaanallah. qofka bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix inta hadalkii sheekha oo waxay keeneen video caadi ay keeneen waxaa hadalkan hadda ka hor sheekhu yiri qisada magaalada Muqdisho iyo tuugada dadka ay u baarayso ka sheekeynayay asagii oo video ay keeneen iyagana caadi ma ilmaha caadi ma wax u dhaweyd inta carraan ay xaq istaagaan isbaar ku dhacay muujeeda isbaar ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugada laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaagaa markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga wallahi sheekh hadalkan runtiisa waa wallahi billaah beentiisa ma waa dhacdooyinkii magaalada Muqdisho ka dhici jiray ay ka mid ahaayeen qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhax galo ay ku soo xoomayaan waxa laga qaato waxa ka galo ninkan aa ujeedaan waxaa waaye hadal oo qof kastoo damiir leh taabanayo ku hadlay wuxuuna yiri asagoo wuxuu joogay si dadka ay sheegayeen ama commentator dadka ay qorayeen ninkan wuxuu joogaa gaalkacyo joogaa qaybta Puntland oo ka joogaa marka wuxuu yiri niyo wariyaha wareysanayo oo ninka microphone gacanta ku wareysanayo warniyo saaxiibo gadigaas kalma igeyso ama hadana wuxuu amaal idilaaw dha saaxiibo maanta 2025 idoo la maray in magaalooyinka qaar la kala gudbi la yahay oo aana qabil daraadeed in lagu dilo ay dadka qaarkii ay cabsi ka qabaan hadalkaas oo hadal minaha maanta magaalada Soomaaliya meesha hadii aad tagtid
qabiil ahaan lagu beegsanayo wallaahi arrintaas waa dhibaato inta ilaag qofkaan waxaa rajeynayna haddii fariinteena ay soo gaarto maadaama ninkan uu kaa codsay dhanka gaalkacyo oo dhanka oo galmudug inaad geysid oo aad soo tusisid deegaankiisu u qurxon yahay soo tusid waa kaa rajeehaynaa marka inuu dadkan colaada iyo waxaan dhibaatada dhex taalana ilaahay iyagana ha heshiisiiyo marka intaasoo ku dhaafaya ninkan videogan isagana aad iyo aad u tiktok ugu gadmay oo aada loo hadalhaayay qofkan oo roobku da-aayo ilaahay uu baranaayo suuqu xalkiisu iska alow sahal yahay shaqo fiican uusan lahayn oo ilaahay baranaayo marka shucuurta xilliga roobka ku aaday iyo allabariskiisa marka dad oo kaamirmaano ama teleefano wato video ay ka duubeen video marka viral u noqday oo aad u gadmay laakiin ducada xilliga roobka way fiicantaa oo xilliga amar ay kugu adag yihiin inaad ilaahay barisid ducadaas badanaa aqbal waa insha allah marka waa video muusiga ku jirto muusiga isku biraay ku soo dhajinayaan inaan hadalka inaan ku badiyaa laga yaabaa marka iskaga daba qaataa maasha allah qof kastoo ilaahay baryo wix ilaahay uu ka baryo insha allah uu helaa qoftan waxaan dhihi karaa qof iyadoo soo jeedo rayoonayso waay sababtaan saan u leeyahay maxaa waay shahrukh khan ay leedahay shahrukh khan inaad jirtid iyo inaad bini aadan tahay xitaa ma ku aqoonsano adigana waxaa waay bas intaa fuushid aad leedahay jecelkeen waa maba ku yaqaana waxaa jecel sheegay bal aan dhegeysano shahrukh khan ibadbaadi dadkan jecelkeena ayay ku xun yihiin inaa lillahi beena isku sheegtay joog عليهم بين اسكو شيكتي جوك شاروخ كوما يقان اسدجي كالربان ورقفتا ايو سو جيدي ريوني سادي باع بين يا سومالي اسكو يسا سبت بهذا نيغلان تمنو لا كريم ايه إنا لله والدنيا هدا جوتي وح على يابتو ما وينيسيد نين هدا او دورو u kacsanaayo ma jiro ilaa kore hadin ka waa la soo xiray booliska soo qabtay afgooyi ma ka dhacda leeyahay madaxa laga dirdiyo madaxa laga fiiqo u jeedin uli iyo waxbay wataan oo soo direen malaha marka waxay leeyihiin ninkan dooro u dabsaaray bay taagan yihiin dooro u dabsaaray nin dooro dabsaaray anaga dooni meeyna ay taagan yihiin bal hadalkaan dhageysan الدنيا دا جوتي wax la arkaysaa waxa ku qosashay mooyinaysa wallahi billah yaab alaabtan fiiri meeshan waxa ku jiro laba nin oo gaagaab Bruce Boy ninkay dhahan iyo waxa Jendel ninkay dhahan iyo sidoo kale waxa ku jiro meeshan aan u jeedaa waxa ku jiro gabadhii aad social media looga hadalhayo Malabo Bilal Bulshawi maxay sameyn doonaan kulay ya sana rabaha isi isi sana rabah ya warla cayman ninkan su'aal la weydiina caasimada Israa'iil sheegay leeyahay muxuu ku jawaabi doonaa talo ما هي عاصمة إسرائيل؟ جهنم. والله سؤال صعب زي جهنم ولا عاصمة جهنم إلهي جهنم كفوا يهود عاصمة إسرائيل هي جهنم. ورديس والله حليمة سيدا هدين العق أرقطو مير كلام لهن قفتان هدا أجيدا وقف عادية أو بني آدم النول لكن واحد كده يساب بومبرة سيدا هدا يجي لي يسوم العارقنا هيدا بعد يا لقى في غي جيل كده على سامتي إن قف عادي أي تاي إن بومبرة كده كلا بارو يا هي بروسا قصة عبا واو رسيد كلا فيه بالعارقنا بومبا لا رسيد كل وصل كلا فيه gacanteeda la fiirino inay bini aadan caadi tahay inay bombala saare ku fiirinoya ayay ku socod iyada waxay jilaysaa mina inay bombala caadi tahay oo wax bini aadan oo meel fiirinaya oo dhaqaaqay oo neefsanayna iska dhigaysaa haye والله فشيلي والله هاي داي ابا ديل العقرب تبس عليهم والله يا
بس فيديو madaxweynaha reer Soomaaliya ka noqdo waxaan ka rabaa maxamuudow hadde adiga ninka wuxuu joogaa baadiyaha galmudug uu joogaa hankiisana wuxuu yahay in uu madaxweyne noqdo bal yuu la hadlayo aan dhageysanno ismaan xoolihii idinka inkaga geeriya arigii iyo waa idinkaas walaalkaygiiyo madaxweynaha raano inaan u tartamo Soomaaliya rabaa madaxweyne ka noqdo madaxtinimada xaalad iskaga geli waa anuu macnaha madaxweynuhu maanu uga fiican yahay macnaha madaxweynaha ninka kaama fiicna war saaxib kaama fiicna aad amal leh waa geli kartaa niyo yaa ku diidi kara adiniyo caadi ma tiid bi waa aragta waa madaxweynayaasha Soomaaliya waa iga fiican anaa qurxoon waa iga falxiyo daay meesh foolxum ma taal iyo qurux ma isku doorno saaxibkay wallahi caadi ma tiid wallahi waxa weey macnaha إلهي وارث إلهي ما حد مستنوني ضدك أنت صراحة برمي لا خلاص ضدك قررت برمي أنت يا أنا تسفر أنا أنت كمان سويني فرقة الشرع إن النيو هرت قفك بالعادة كادو هان ليه أما ميها جو أما قالها جوجي هنكي صرت إلهي بحنك رحمة تنام إلهي بحيو marka kulay waa un hadda iska ma jilin iyo iska ma daalo ah laakiin haduu jeesto uu sameyn karo easy saan ma qaaniyo horta madaxweynaha horta bari horta ilaahaniyo maxamuudow day adii macnaha ma mucaarad ma ii diidan ninkii saaxiibkiisa ah oo la tashanayo ka dhaadhicin laayahay wax kale iska dhaafay ana walaan waxaan rabaa inaan u tartamo ana ma guudi war saaxiibayaal videogan intaas ku soo gabagabeynayna هذا وبالله توفيق فضلا يوتيوب كي سبسكرايب صار فيسبوك كي نفولو iga soo dheh waxaan kaaga baahanahay hadii tolnimo ay jirto oo walaalnimo ay jirto oo Soomaalinimo ay jirto follow iyo subscribe kaaga baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh video hada ka shay like share comment ciao ciao